بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. وبعد waxaynu kelmada ka odhan doonnaa haddii alla yidhaahdo inta ilaahay subxaana wa tacaala inaga garaqsiiyo mowduuca ku saabsan iimaanku inuu yahay aasaaska bulshadu ay ku kulanto. aliimaanu biاllahi wa birasuulih aw birusulih. kelimatu liimaan haddii la iska iطlaaqo islaamka o dhan baa soo hoos gala. si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya inuu iimaanku shucab badan yahay oo laa ilaaha ila allah ugu korayso ama ugu sarrayso, ay ugu hoosaysana imaaطaة اlأdaa can الطariiq. ambiyada ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku soo diray hanuun iyo wax bini aadamka mideeya oo tubta toosan ku rida. waxaanay rususha ka mid ahaayeen taariikhda bini aadamka marka dib loo raaco halyeeyadii ugu mudnaa ee kulmiyey bulshada dunida ku kor nool. ummaddan islaamka markaynu iyada gaar u sii eegno ama ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu ku sifaynayaa khaasiyadooda inay ka mid tahay inay umma waaxida tahay, waana rabbukum facbuduun. ummo keliya baa tihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, anna rabbigiin baan ahay caabuda. tawxiidku ama iimaanku waa dad hadaf iyo masiirka isku waafaqay. dadka ahluliimaanka ahi waxay aqbaleen inay ahdaaf go'an wada leeyihinoo waa dad aakhiro u jeeda, waa dad ilaahay subxaana wa tacaala dhabbadiisa ku socda, xagga alle u socda subxaana wa tacaala. waa dad ku walaaloobay islaamnimada. ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى قرآن كيسا وحكو ليهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كو إيمانك لغا هليو أن لك عبصد سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى عبصديس لي ماذا حق التقوى عبصده وحق لي الله سبحانه وتعالى كعبصده oo ha geeriyoonnina idinku aan muslim ahayn. waxaa kaloo ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala markaasi waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. waactasimuu bixabli illaah, alle jidkiisa ama xadhiggiisa ama kitaabkiisa ilaahay subxaana wa tacaala wada qabsada, kaasi haydin kulmiyo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ka soo saaray jaziira alcarabiya, meel aan boqor lahayn oo madax lahayn oo cidi cid kala soconin oo qabaa'ilah, oo qabaa'ilkaasi dhammaantood ama qabiilaba qabiilada kale ay ku duusho, oo cid waliba ciddii ay ka xoog badan tahay dulmido, oo ninkaan seeftiisu dhacaynin aanu wax cadaalada ama xuquuqa helaynin. bulshada noocaasiya iyo ilaahay rasuulka u soo diray calayhi salaatu wasalaam. dabeetana muddo yar ayay bulshadaasi waxay ku noqotay bulshadii dunida tan hagaysay, umma marhuubat iljaanib, ummo mid ah oo bashariyada dhammaanteed hoggaaminaysa,
oo bari ilaa galbeed labadii dowladood ee waaweynaaye ka jiray u babacdhigtay oo khalqi aad u tiro badani uu hoos yimaado. maxaa keenay bulshada tani inay sidan u midowdo? maxaa keenay bulshada tani inay hilmaamto wixii dhexdeeda yaallay? yani bulshadani may ahayn bulsho marka hore isku sal bannaanayd ee waxay ahayd bulsho isdishay. dagaallada qaarkood 40 sannadood bay dirirayeen, dagaallada qaarkood 5 sannadood bay dirirayeen. dagaalladaasi maalan ansaar waxay gaadhsiiyeen xad la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu markay soo hijroodeen waayelba wuu ka dhammaaday, xoogaa dhallinyaraabaa isku hadhay, qabaa'il dhan oo waayeel ka dhammaaday. waxaasoo colaad iyo rabshada iyadoo ay jirto ayaa islaamku u yimi, dabeetana iimaankaa mideeyey, aakhiraa midaysay, adduunkaa la yaraaday. wax weynoo laysku qabtaba adduunku wuu noqon kari waayey. wixii la raadacaynayoo dhan baa noqotay waxaan qofka agtiisa qiimo badan ka lahayn.